kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka ee janalkeena qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona xoogga al-shabaab ayaa magaalada Muqdisho ka kordhiyay beegsiga beesha reer Xaaji Saleebaan iyo ganacsada mid ka mid ah ganacsada beeshaas ka soo jeeda ayay toogteen ciidamada digniin adag ay u sii direen dadka beeshaas ka soo jeeday guud ahaan beelaha dagaalka kula jira ururka al-shabaab ee gobolada galgaduud iyo Hiiraan ka socda waa daawan doontaan madaxtooyada Soomaaliya waxa ay war la yaab leh ka soo saartay kacdoonka shabaabka lagu jiray ee shacabka ay wadaan xuseen macalin taliyaha amniga qaranka oo su'aalo cajiib ah laga weydiiyay been abuur oo faafiyay ayaa soo kala daawan doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona sheekh caanka ahaa Allah u naxariistay Sheekh Yuusuf Qadaraabi oo maanta ku geeriyooday dalkaas Qadar taariikhdiisa iyo warbixin kooban ayaan kaga heynaa waxaa kaloo daawan doontaan taliye shub mahad cabdiraxmaan aadan taliyihii hore ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed haatan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ku dhawaaqay dagaal inay diyaar u yihiin ay ku qadaan dagaalamayaasha ururka al-shabaab ee gudoomiyay degmooyinka markaasi Waajid iyo Bakool oo markaasi koonfur galbeed ka tirsan shub oo war cajiib ah ka soo saaray dagaalku ku dhawaaqay soo kale in soo gudbi doona safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna qodobo laga faafiyay soo kala daawan doontaan oo dib ugu soo laabto dalka qodobadaas aan ku faahfaahin doonaa warar kale mana caalamka diblomaasiyadda fadlan haddii aad nagu cusubtaa marka hore subscribe saar gambalka furo una sii shargalay saaxiibadii markay sii joogaan idinku kumatiga like inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin aanu ku bilaawno xoogga al-shabaab ayaa magaalada Muqdisho ka bilaabay beegsiga beela gaar ah iyo xildhibaano markaasi ka soo jeeda beeshaasi dilal kala duwan oo ay fuliyeen kooxo bistoolada ku hubeysan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoo ay sii socdaan falka al-shabaab ay ku beegsanayaan beelaha gaar oo markaasi dagaalka kula jira gobolada dhexe ee dalka waxaa suuqa weyn ee degmada Wadajir ee caasimadda Muqdisho lagu dilay ganacsade lagu magacaabi jiray Daahir Dukle xilli uu ku sugnaa goobtiisa shaqo waxaana goobta ka baxsaday dibleedii dilkiisa fulisay inta aysan gaarin ciidamada amniga isla shalay suuqa bakaaraha waxaa lagu weeraray ganacsade kale oo lagu magacaabo Guuleed Cali oo aadan dhaawacii ka soo gaaray rasaas ku dhacdayna u geeriday laba ganacsade ee markaasi dilalkii ugu dambeeyay lagu beegsay ayaa ahaa dhalinyaro shaqooyin yar markaasi sameysay oo al-shabaab ay markaasi u beegsay inay ka soo jeedaan beesha degmada Cadaad oo markaasi dagaal kala hortimada dhaqdhaqaaqa al-shabaab waa beesha reer Xaaji Saleebaan oo ay ka soo jeedaan xildhibaanada markaasi dowladda ka tirsan ee caanka ah sida Saabir Nuur Suuriye iyo soo kale Cabdiraxmaan Al-Cadaawi wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee Soomaaliya dhaca kale xildhibaan Saabir Nuur Suuriye oo beeshiisa ku matala golaha shacabka ayaa ka hadlay dilka ka dhacay Muqdisho isagoo ganacsada ugu baaqay inay joojiyaan lacagaha canshuurta ay siinayaan al-shabaab in saaka dukaamadii yaryaraha wiilashii iibinayay lagu dhax dilayo iyagoo markaasi aanay jirin cid ay dambi ka galeen aan ka ahayn inay markaasi risaaqad xalaal ah soo raadsadeen kaliya waxa aan si gaar ah warka hoose ugu dhigayaa ganacsadaas reer Muqdisho waa in aad ogaataan buuri canshuur shabaab la siiyaa laguna deyn maayo ee walaalka ayaa lagu dirayaa ee mas'uuliyadda waxbaad ka qaadanaysa aakhiri adduun ayuu yiri xildhibaan Saabir Nuur Suuriye wuxuu xildhibaanku ku baaqay inay hurdada ka kacaan dadka Soomaaliyeed ay ogaadaan in loo socdo diinta nafta hantida iyo sharafta guud ahaaneedba beegsiga gaarka ay al-shabaab ay markaas ay ku bilaabeen dadka ka soo jeeda beesha reer Xaaji Saleebaan ayaa sii kordhaysa waana tiradii ugu badneed ee al-shabaab ay markaas ay ku dileen gudaha magaalada Muqdisho ayaguna markaas sheegay in ay dilkooda ay sii wadi doonaan al-shabaab beelaha kale ee markaas dagaalka kula jira dhaca kale madaxtooyada Soomaaliya ayaa war cajiib ah sheegtay kadib markii su'aal lagu weydiiyay Twitter Space uu ka qayb galay la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Macalin wuxuu beeniyay dacayad ay faafiyeen qaar ka mid ah dadka ka soo horjeeda kacdoonka ka dhanka al-shabaab ee dowladda ay hubeenayso qabiilo gaar ah qabiilo Soomaaliyeed oo dowladda Soomaaliya hub siisay ma jiro kaliya dowladdu waxa ay siisaa rasaas macbuusleyda dhaawacoodana waa la daweeyaa ayuu yiri la taliyaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inanka amniga qaranka Xuseen Macalin ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya inay markaas iyadu haatan hogaaminayso dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolada dhexe ee Soomaaliya markaas beeluhuna ay gacan ay ka sinayaan hadalka Xuseen Macalin ayaa yimid kadib markii taageerayaasha madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay bilaabeen inay dacayad markaas noocaas ay ku faafiyaan baraha bulshada si beelaha la iskaga horkeeno wasiirka arrimaha gudaha ayaa waxa uu ugu digay in al-shabaab ay isku dayi doonto inay markaas dagaalka ku rogto beel duulaan ku ah beel kale si ay iyaga markaasi iskaga horkeento beelahaas kale ma cadda sababta taageerayaasha Farmaajo ay u carqaladeynayaan dagaalka ka dhanka al-shabaab hase yeeshee waxaa rumaysan yahay inay ka cabsi qabaan in haddii dagaalka uu guuleysto ay shacabka arki doonaan sida Farmaajo 5 sano ugu khasaaray Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha waxa uu sheegay in kooxaha markaasi shaqo ka qaba howlgalka ee dacayadaha kooda ay kaliin
kooxda kuwaad wuxuu yiri waa argagaxso nafteeda ayuu yiri isaga oo sheegay in cali dheer oo afayeenka al-shabaab uu dadka calooshooda markaasi ka qarxiyey ee uu masaajidda markaas ku weeraray markii ay hubka ay qaateen kuna tilmaameen mooryaan laba wuxuu yiri waa kuwo ku fashilmay nidaamkii hore ee farmaajo al-shabaab markaas uu ogolaaday inay degada canshuur ay ka qaataan oo dhagaxaanta dhuufeysada la rabay baadiyaha inay markaasi sameystaan waana kuwa CPB loo yaqaan kooxda afraad wuxuu yiri waa koox markaasi deegaankoodu nabad yahay oo dhulal markaasi nabad ka yimid oo raba inay gafanay dadka ku dhex nool oo quuta dadkaan u dhigo markaasi shaqay kaas waxa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi warkaas wuxuu ku mid taliyaha amniga qaranka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Xuseen Macalin oo markaasi Twitterka dooda arrimaha maxuusayda iyo ciidamada dawladda looga hadlayay oo ka hadlay wararka ay baafiyeen dadkaan CPB ah ee nidaamka horkaaray iyo qolooyin markaas uu Axmed Macalin Fiqi wasiirka arrimaha gudaha federaalka oo markaas beeniyay markaana haddii aan eegno taliye shub oo taqaanaan caan ah oo hore u soo noqday taliyaha asluubta ciidamada Soomaaliya loona yaqaano waa magaciisa saxdu yahay Mahad Cabdiraxmaan Aadan xildhibaan hadda ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa wuxuu si cajiib ah uga hadlay dagaalada markaas ka socda ee gobolada dalka ee al-shabaab looga soo jeedo kacdoon dadka shacabka ay wadaan ayuu sheegay in markaas ayaguna diyaar ay u noqdaan taliye shub Mahad Cabdiraxmaan Aadan dhimasho ayaa diyaar loo yahay buri niman yahow maqaayadda halkaas ayay timid dagaal ayaa la aadayaa Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa sheegay in al-shabaab ay go'doomiyeen degmooyinka Waajid iyo Boqol iyo deegaano kale oo koonfur galbeed ka tirsan oo uu sheegay in markaan yihiin kuwa daaran oo daal weyn uu ka muuqdo daalkan loo baahan yahay in lagu faa'iisto isla markaana aan loo jixin wuxuu sheegay in dadka shacabka ay u sheegayaan in xaaladda si hore iska bedelayso isla markaana ay ka bedelayaan dhaqankii hore in lacag ay ka qaadaan zagawaadkii xoolihii dhammaan al-shabaab wuxuu sheegay in fikradaas ay dadka ay leeyihiin waa bedelaynaa qaab kale oo nidaam cusub ayaa markaasi idin keenay qaabkaasayna nagula dhaqmaysaa laakiin wuxuu sheegay in muhiim ay tahay in laga hortago warkaas laga baxo hubkii dagaalkana laga qayb qaato oo furimaha dagaalkana tago dhalinyarada ayuu ugu baaqay ciidamada booliiska ah in ay u hoggaansamaan nidaamka ee dagaalka looga soo jeedo qaybihii dhexe ayaa daawanaysaan channelkeena fadlan intaad nagu eega marka hore subscribe noo saar gambalelkana furo una sii shirkeeya saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo kumatiga like noo reebaya sheekh caan ah ayaa geeriyooday markaan oo dadka qadar ku geeriyooday allah u naxariistay sheekhii caanka ah ee lagu magacaabi jiray Dr. Yusuf Al-Qadaraawi sheekhii caanka ah ee reer Masar Dr. Yusuf Al-Qadaraawi ayaa la shaaciyay inuu marka ku geeriyooday magaalada Duxay ee dalkaas Qatar geerida sheekha waxaa lagu xaqiijiyay bog rasmiga uu lahaa Dr. Yusuf Al-Qadaraawi ee Facebook iyo Twitter waxaana bilowday tacsida dunida islaamka oo dhan ay u dirayso caalamkaas fariinta tacsida ayaa lagu yiri waxa eeba ugu barinaa inuu markaas ka aqbalo amalka wanaagsanaa ee uu qabtay una la mid noqdo nabiyada run sheega shuhadada iyo kuwa wanaagsan Sheekh Yusuf Al-Qadaraawi ayaa ku geeriyooday da'da 96 sano wuxuuna ahaa aasaasihii hay'adda culimada islaamka iyo caalim caan ah oo dunida markaas islaamka aad loogu yaqaano wuxuu ku dhashay dalka Masar balse wuxuu muddooyinkii dambe noolaa dalka Qatar oo dhalasho ay siisay markii isku dhaceen dawladda Masar oo eedo markaas taageerida argagixisada u soo jeedisay ayuu ka soo guray sanadkii 2008 Sheekh Yusuf Al-Qadaraawi wuxuu kaalintii saddexaad ka galay 20 shakhsi ah oo ku jira liiska musaafiriinta ugu saameynta badan adduunka cilmi baaris ay sameysay majaladaha caanka ee Foreign Policy lagu magacaabo Al-Qadaraawi wuxuu qoray in ka badan 170 kitaab isagoo markaas ka qayb galay shirar seminaaro iyo barnaamijyo telefishinno oo ahaa kuwii ugu badnaa markaas oo dhanka arrimaha diinta uu uga hadli jiray wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka kala socoteen channelkeena qaybtan daawata wanaginta fadlan hadaan nagu subtahay maamina subscribe na tirada gambalka afurtaan oo sii sheekeynaysan saaxiibadii ma kasta joogan aad bad maasantiin